قرن وحاكو قرن هلك كان حسوس باكو قرن محان حسوسنينا وحان حسوسنينا وحد عي ما انتو كلي بشا بشيدي أفر يطبن بشان مركا وإنا لغيسنا وحي كسو أروري إيا حسوستا waxay tahay inay sharci tahay inayna sharci ahayn umadu maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la isu sheego in waxa ahay la isu dardaarmo in la isu duceeyo dadka waxa sameeyo waxaan idin leenahay Soomaalinimo waxa dilaysan waa Soomaali waxa dilaysan waa dadkeeni waligiin taariikh ma sameeynaysan waxaan leenahay war jooga waan ahbinaynaa war ayagay dan u tahay haka shaqaynina maalin aad shalaydaan maalin loo xiraayo qof walba wixii ay kasbatay kullu nafsin bima kasabat rahina naf kasta waxay u xirantahay waa qiyaamo maalinta qiyaamo wixii ay samaysay ay ma loo soo taagayaan inay samayso 500 oo qof 600 oo qof kun qof wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo waxaan tibeelay ay naqdaan oo qof oo sharaf ku yeesho oo karaamo ku yeesho oo aakhira saadada والله إني سندعيني وقاعدة كجوجان إذن لنا وحن كلون لنا هاي ضدك سوماليين وحي أي سمايين أو هاد قرمتك أو أن لوك لهرين لقب الله بالدولة ده لقب لو حجيو شعبك سوماليين الدنيا ده ملك استوجوجي وح أو سمي ما الله المام دونه وعنو ما هذا علينا يا شعبك سوماليين مل والباي جوجان أو سو قرمدي dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas laga bilaabo gabdhihii iyo wiilashii yaryaraa ee soo dhiibay lacagta yar iyo buskudka iyo kuwii soo dhiibay boqolaalka kun oo dollar iyo kuwii dhiigooda bixiyay kuwii xoogooda bixiyay kuwii waqtigooda bixiyay oo isugu jira dhalinyaro culumo dawlad guddi cid walba qof walba oo Soomaaliyeed oo gacan ka geysatay qof walba Soomaaliyeed oo u soo duceysay waxaan idin leeyahay anigoo ku hadlaaya dhammaan magaca dawladda oo madaxweynaha anigu horeyno waxaan leeyahay waa mahadsantiin Ilaahay ha idin barakeeyo intaas ka sokow sida culimada ay noo sheegeen kuwii diin laawayaasha ahaa ee qaraxan geystay iyagu isma qarxiyaan oo waxay soo diraan caruur masaakiimiina caruurtooda ma qarxiyaan oo caruurtooda waxay u dirsadaan iskuulo waxay qarxiyaan caruur islaameed oo ay dhaleen shacab Soomaaliyeed iyagoo dad ku shaqaysanaya inay ummad Soomaaliyeed u baabi'iyaan shaqay u soo dhiibteen kuwa ajnabi ah marka diin kama shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan dulinimadaasna shacabka Soomaaliyeed way fahmeen meel baana looga soo wada jeestay qaraxaas markii ay geysteen waxay aaminsanaayeen inay tirtiri karaan dawladnimadeenna waxay aaminsanaayeen inay qarannimadeenna hoos u dhigi karaan waxay aaminsanaayeen inay cabsi gelin karaan waxay aaminsanaayeen inay damin karaan nalka yar oo iftiinka ah oo noo baxay waxay aaminsanaayeen inay dunida u sheegi karaan Soomaaliya waa meel aan nabad ahayn
waxay aaminsanaayeen dadka Soomaaliyeed in niyaddooda hoos u dhacday ama ay u dhigi karaan waxaa Ilaahay noogu bedelay midnimo waxaa Ilaahay noogu bedelay horumar waxaa Ilaahay noogu bedelay deeqsinimo waxaa Ilaahay noogu bedelay gacan furnaan waxaa Ilaahay noogu bedelay jacayl cusub oo dalkeena jeclaano waxaa Ilaahay noogu bedelay in dadka Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan kuwa leh fikirka guracan horumarkii noo bilowday sanadkii la soo dhaafay ayaa ilaa hadda noo socda waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo haddii aan ku soconno sida aan u soconno hadda in dalkani uu noqon doono dalalka ugu horeeya dawladda Afrika mid ka mid ah ugu dambeyntii waxaan leeyahay dhammaan carruurtii waalidoontood ay ku geeriyoodeen halkan maalintii iyada ahayd waxaan ku amrayaa ama farayaa wasaaradda waxbarashadu in carruurtaas lagala shaqeeyo in kulligood la siiyo waxbarasho lacag la'aan ah si ay u helaan fursadda ay leeyihiin carruurta kale waxaan codsanaynaa markaa guddigii ka shaqeeyey gurmadka dhallinyaradii nagala shaqaysay gurmadka wasaaradihii ka shaqeeyey gurmadka inay soo gudbiyaan carruurtii waalidiintood halkan ay ku geeriyoodeen magacyadooda si wasaaradda waxbarashadu ay uga caawiso inay helaan waxbarasho lacag la'aan ah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacay waa Maxamed Saalax Maare waxaan halkan ku soo gudbinaynaa maanso kooban oo magaceeda la yiraahdo Kacdoon Dhalinyaro maansadaasi waxay si qoto dheer uga sheekaynaysaa ama uga hadlaysaa dhacdadii foosho xumeyd ee 14 Oktoobar ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan iskuiska Soobe oo ay ku nafwaayeen boqolaal Soomaali ah oo runtii qaranka qurux iyo qiimaba u lahaa maansadan dhanna waxaan uga baroor deeqaynaa dadkii ku dhintay dhanna waxaan wacyigelin ay u tahay iyo dhiirigelin dhalinyarada Soomaaliyeed dhanna waxaan kala sheekaysanayaa guud ahaan magaalada Muqdisho maansada magaceeda Kacdoon Dhalinyaro la yiraahdaa waxay ku bilaabmaysaa sida tan waxa dhacay masiibo ka weyne bulsho yahay ka dhiidhiya maanta oo dhibkooda aan la dareeno inta dhaawac gaadhay jirkooda in dhaqaale meesha ku weyday iyo dhimashadoo tiro beeshay uma jeedno maanta dhaliilo dhaleecayn xanuunku ka weyne dhalinyaroy runaanu midowno dhalinyaroy runaanu midowno awoodeenna aan ka dhabayno aqoonteenna dheefsanno maanta hooyada dhibaatadu gaadhay aabbaha dhallaanka ku waayey war aan dhaawacooda daweyno xamaray haquusan dhankaaga xamaray haquusan dhankaaga waxa iman dharaaro wanaag leh amni iyo dhalaal wirwidhaya xamaray haquusan dhankaaga awooddaadii baa dhalanaysaa dhalintuna aday kuu heelin xamaray haquusan dhankaaga dhaaxay colaad ku dul joogtay
dhaaxaad dagaal xamilaysay oo dhiig ku daatay korkaaga muqdishoy dhibaatadu waa mar mana sii jirayso dhegteedu qarax iyo masiibo dhammaatay war u hura dhaqaale dadkiina dhibanaha xanuunsan daweeya dhakhtarrada tagoo garab siiya dhiig shuba walaal sadaqaysta dhacdadani xanuunka ay reebtay waa dhaawac gaadhay xiskeenna dhammaanteen haddaan sa midowno oo aan kacdoon ka dhabayno dhagarqabaha jaanis u diidno sumcad